قرنمة الصومالية إلى كبق عابو قاشان لصري جامع علمي تمر قاشان لصري أبشر حاشي إيو كابتن عبدي محمد سمطر عبد ديرة كان runtii waa wadaniyiinta hadda nool oo aan tilmaami karno nin walbana wuxuu ku tilmaamay inuu sheegaya markan gaashaan sare abshir xaashi waxa weeye sarkaalkii runtii xafiday hayay difaacay u horay ilaalinta kaydka raadiyo muqdisho marka abshir ummadda Soomaaliyeed waa ku ogsoon tahay waana kugu faanaynaa inaad ka dhalatay Soomaali qof adigoo kala ah قاشان سر جامع علمي تمر وقسطامي قاشان سر جامع وهو اسمه حفيده كيدك محمد هذا بوليسكا قالسك عيدك بوليسكا wax alla wixii document yaalay oo la aruurinayay ilaa 1940 Soomaa koox macnaheedu waxay tahay ciidamada booliiska waxay wax alla wixii qoray warqad haday noqoto dadkii dambiyada gali jiray oo criminalska ahaa farahoodii iyo masawiradoodii iyo darajada ciidan walba oo soo maray booliis waad maasan tahay adeer waa maasan tahay waa ku xasuusnaan doonaa waana ku xasuusanahay kabtan Abdi Maxamed Samatar Abdi Dheere waa ku salaamay kabtan Abdi Dheere wuxuu ahaa kabtankii ilaalinaya wasaaradda arrimaha dibadda oo mas'uulka ka ahaa markii dawladii dhexe ee dhacday kabtanku sidii qof walba uu yeelay waa iska tagi karay hadduu rabana waa bilaqaysan karay laakiin ma yeelin Soomaaliya ha noolaato kuwaas waxay ahaayeen saraakiil sarsare oo difaacay si weyn ay u ilaaliyay hantidii qaranka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladihii dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaasi waxaan leenahay waa muwaadiniin sax ah oo metelaya dadka daacadda ah ee u dhashay una dirnaxaya waddanka Soomaaliya waxaan leenahay Soomaaliya marna lagama waynayo dad sidaasi u daacada dawladda iminka jirtana waxaan ka codsanaynaa inay kalaamayso qof walba oo muwaadin Soomaali ah oo si daacad ah uga run sheegay Soomaalinimadiisa difaacayna sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya hadinto qof walba oo waddankeena dib u geystay hadinto haduloobo qof walba iminka u maleegaya dibindaabo siyaasadeed iyo mid afalxumaba hadin leenahay ku noolaada calanka buluuga shanta xidig ay ku jirto xurriyadda nabadgelyada iyo guusha Soomaaliya intii u dhibatay calankeena ayagoo difaacaya muwaadiniinta Soomaalida waxaan leenahay eebaha idinka janno siiyo Allahna ha idinka abaalgudo wanaagii aad noo soo qabateen xurriyadda ahaa waad ku mahadsantihiin ayaan idin leenahay sida wacan ee aad nooga naxdeen ee aad noo soo difaacdeen ee nafsadiidin noo soo horteen si aan inaga ugu noolaano xorriyad iyo madax banaani haddaynan idinka dhiman lahayn annaga ayaa maanta ku jiri lahayn gumaysigii adinka aad lafihiina u horteen waxaan leenahay ha noolaato Soomaali meel walba ay ku sugan tahay waa saaxiibkii Raaco Yare Muqdisho TV-na waa naga daawanaysan